السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش ku xiran channelkayga Tiktok Sajiya kusoo dhawaada walaalahay qaaliga ah meel walba aad joogtaan isi walbo maqalkayga idin soo gaarayo. Mawduucayga maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee uur loo qaadi karaa ama waqtiga saxda ah ee ugu wanaagsan uur qaadis. Hadduu rab ka noqdo muuqaalka la garay una share garay asxaabtaada. Uur qaadistu waxay ku xiran tahay awoodda Rabbi asag garanaya xilliga qofka uu uur qaadayo. Sida cilmi baaristana lagu ogaaday fursadaha ugu wanaagsan ee uurka lagu qaado waa mar ay ugxanta la soo daayo ayna diyaar u tahay in la bacrimiyo ugxanta. Haddaba haweenka inta badan waxay caadadu ay helaan 28 maalmood. Maalinta ugxanta la soo daayo waxay ku aadan tahay kala barka oo ah maalinta 14aad, 15aad ilaa iyo 16aad. Waxay fursad u haysataa qofkaasi inuu markaasi heli karo uur ama uu sameyn karaba markaasi sidii awlaad u heli lahaa haddii markaas lamaanaha ay isla joogaan. Inta aadan helin uurka, cuntooyinka nafaqada leh ee aad u baahan tahay iyo sidoo kale miisaanka normalka ah ama qofka miisaankiisa iyo da'diisa ay isku xiran tahay waxay ka caawinaysaa in ay markaasi jirku u diyaar garoobo inuu uur u qaado. Nafaqooyinka aad u baahan tahay waxaa kamid ah zinki, macdanta zinki, folic acid ayaa kamid ah, macdanta calciumta, vitamin C ga kamid iyo vitamin D ga. Nafaqooyinkan waxay badinayaan shahwada waxayna ka dhigayaan mid awood leh oo si sahlan meel kasta ugu gudubta. Haddii ay caadadaadu ay saxan tahay waxaad calaamadeysan kartaa ama meel ku xariiqin kartaa maalinka ugu horeysa ee dhiiga ama caadadu kugu dhacdo. Kadib maalinta markii la gaaro aad xisaabso kala bartanka ama maalinka ugu dhaxaysa ayaad markaasi ogaan kartaa in ay ku aadan tahay marka ugxantaadu la soo deynayo. Maalinka la soo deynayo ugxanta waxaa isku arkaysaa qoyaan nadiif ah oo xagga hoose ah ayaa ka dareemaysaa. Sidoo kale labada maalmood ee dambana waxaad dareemi doontaa ama aad dareemaysaabo qandho aad dareemayso oo sida hugaar aad dareemaysaa. Haddii aad rabto in aad sii ogaatid xilliga ugu habboon ee aad uur yeelan karto waxaa jira qalab kaadida lagu baaro oo anshiyaha laga helo laga soo gato. Qalabkaasi ayaa markaas ku baari kartaa si markaasi u ogaato in ay hormoonadaadu diyaar ay yihiin iyo xilliga ugxantaada la soo deynayaba aad ku ogaan kartid. Sidoo kale waxaa muhiim ah in ay kulmaan ama joogteeyaan lamaanaha. Wuxuu kordhinayaa fursadaha uur qaadista ay kordhinaysaa. Waxaa muhiim ah waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaani. Fadlan la soco qaybta labaad ee uur qaadista. Ugu mahadsantahay share garay muuqaalkana like garay.